waa caruur danyar ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ma aysan ku tashanin sanadkan iidaan balse deeq lacageed oo ka timid madaxweynaha dowladda Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen taliyaha booliska Hirshabelle ee maayirka magaalada Beledweyne Andar Tabax maalin ayaa maanta lagu ciisiyay 300 oo ruux kuwaasi oo ah dad aad u danyar 150 dadkaas ka mid ah ayaa waxay ahaayeen caruur halka 150 kalena ay ahaayeen dad waaweyn ugu horeen waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka wacyigelinta gobolka Hiiraan Cabdirashiid maantay oo isniina meeshan aan dhar ciid ugu qaybinay 300 oo isku jiro 150 caruur agooman ah iyo 150 haween ah oo dad danyar ah dadkaas oo awoodin dhar ay ku tukadaan inay helaan iyo caruur aan awoodin inay helaan dhar ciidsiin ah ururka wacyigelinta oo ciidii saddexaad ciidsiinay dadkaas masaakiinta ah ayaa maantay waxa ciidsiin 300 run ahaantii marka dadkaas waxay ahaayeen dadkii aan afurinta soo siin jirnay ama kaamanka waxa ka soo kala xulnay kaamanki aan afurinta soo siin jirnay ee afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne run ahaantii ururka waa markii saddexaad oo dhar ciidsiin oo si dadkaas masaakiinta aan awoodin inay dhar ciid helaan waxayna isku jiraan dad danyar ah iyo dad agooman ah run ahaantii waxa meeshan ugu mahadcelinaynaa dadkii soo sadaqaystay ama ka soo qayb qaatay oo ugu horeeyay madaxweynaha Hirshabelle iyo taliyaha ciidamada Hirshabelle iyo maayirka magaalada Beledweyne oo saddexdood si wada jir ah ugu qayb qaatay in dadkaas masaakiinta ah ama dadkaas agoomanta ah inay helaan afur iyo dhar ciidsiin ah runaantii cid walba oo ayadana ka qayb qaadato waxa meeshan ugu mahadcelinaynaa oo si gooni ah iyo si qaas ugu soo qayb qaadatay inay caruurtaas agoonta ay helaan dhar ciid ah runaantii waana arintii loo baahnay ay wada dareemi karteen ilmihiina maanta dhar ciid haysto oo faraxsan iyo ilmihii agoonta waxay waxba haysanin marka waxa weeye aniga waxay nagu cibra qaadasho tahay marka waa ku mahadsantiin cid walba ku soo qayb qaadatay iyo cid walba ka soo shaqeysay sidoo kale qaar ka mid dadkii la gudoonsiiyay dharka ciida ayaa u mahadceliyay madaxweynaha dowladda Hirshabelle waxaana la siiyay dhar ciid ah waxaana loo iibsiyay 150 caruur iyo 150 haween waa ku mahadsan yihiin waana ku mahadcelinaynaa waana ku mahadsan yihiin ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay maayirka magaalada Beledweyne Andar Tabax maalin oo sheegtay in aad muhiim u tahay in la garab istaago dadka maskiinta ah lagana farxiyo caruur masaakiin oo haysan dharkiida sidoo kalena waxay u mahadcelisay madaxweynaha dowladda Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo taliyaha ciidanka booliska Hirshabelle ururka wacyigelinta oo aan isleeyahay kaalin lixaad ay ka soo qayb qaateen afurintii dadkii danyarta ahaa waxay maanta u taagan inay ciidsiiyaan 150 caruur ah oo agoon ah iyo 150 dad waayeel ah oo ayagana danyar ah ama aan ilmo lahayn ama duruufaysan aad ugu mahadsan yihiin maadaama ay u doodeen ama ay xoogooda ugu sadaqaysteen ama ay dadka wax baxsan kara uga soo qaadeen inay 300 oo qofood oo agooman isugu jira dad waaweyn waayeel ah inay ciidsiiyeen aad ugu mahadsan yihiin runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa Allah ka sokow madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe taliyaha state-ka Xasan Dhicisow iyo anigoo ah maayirka magaalada Beledweyne in saddexdeenuba 300 oo ciid ka qayb qaadanay inaan ciid siino madaxweyne aad ma santahay taliya adigana sidoo kale أنا تاجن وسكم هالعلنايو لما أنتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسين عبدي هيرشبيلة TV بلدوينة.